barwaaqada iyo caafimaadka iyo roobka iyo nabadgelyada iyo naxariista ilaahaasaa ay nabad ay u sugnaatay mahad u sugnaatay waxaan leeyahay waxaanu u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ergadana soo sharaftay ee na karaamaysay ee na ajiibtay ee noo timi ee joogta ayaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaanu salaan qaaliya u diraynaa cid kastoo Somalilaana oo naga mudan hadday dawlad tahay hadday golayaal tahay hadday xusbi qarameed tahay hadday qurba joog tahay hadday culimaa u diin tahay hadday madax dhaqameed tahay cid kasta waxaanu u diraynaa salaan baanu uga diraynaa halka kan waxaanu doonaynaa dad fara badan oo beeshan ka tirsan oo dibadda badankoodu ku nool yihiin iyo kuwa gudaha joogaba oo duco naga soo codsaday ergada karaamada leh ee nala joogta iyo beesha Axmed Faarax intooduba inay u duceeyaan inuu Ilaahay u aqbalo dadka qof waliba meesha uu ka ciilan yahay oo muraadkooda san oo khayr Ilaahay siiyo waxa maqlayseen go'aamadii shirka ka soo baxay ee nabadgelyada lahaa ee daris wanaagga lahaa ee aanu ku dhawaaqnay ee aan nala qaadateen iyadana aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu ku hanweynahay oo go'aamada iyada ku jirta inaan shirka ururshe aanu isku taagin beesha Axmed Faarax ee aanu la qaybsanno beelaha habar jeclo bari sida biciide reerdood sambuur bari uduruxmeen muuse iyo reerka la yiraahdo iyo reeraha kale ee la mid ah maxamed bare iyo buraale yoonis waxaanu doonaynaa neecawda nabadeed ee socota inay aynu ku ururno oo aynu gobolkan horumar iyo nabadgelyo iyo wanaag iyo wada tashi iyo isjacayl aynu ku abuurno ilaahayna waxaan ka baryaa inuu nooga aqbalo oo naga yeelo waxaan leeyahay waxaanu taageersanahay beesha Baho Faarax beesha Idarays oo ay hogaaminayaan madax dhaqameedka suldaanka iyo boqorku oo suldaan Siciid wax looga tirinayay war bal hadda nuur naxarow maqal war waa taageersanahay waxaan leeyahay waa qaali nabadgelyadu waxaan taageersanahay shakhsi ahaan caaqil xirsi diiniye cali go'aamadii uu soo jeediyey ee uu leeyahay nabadgelyaa lagu gaadhayaa ee uu ka hadlaayay iyagana aad baan u taageersanahay waxaan leeyahay oo maanta aanu halka kan aanu ku soo dhawaynaynaa oo ay taladayada ku jirtaa oo aanu ku baaqaynaa oo uurka nagaga jira oo aanu tirsanaynaa inaanu waalid u nahay oo odayaal u nahay oo beel dhexdhexaada u nahay beelaha bariga ee habar jeclo waxaanu leenahay nabadgelyadii halkan ka taagnayd iyo colaadii xoogga lahayd ee dalka naafaysay waa ee loo soo gurmaday dadkii danaynayay ee u soo gurmaday ee culimo lahaa ee madax dhaqameed lahaa ee dawlad lahaa ee ciidamada qalabka sida ee dhaxanta iyo roobka ugu jiray lahaa dhammaantiin Allah haydinka jasaa'isiyo waanuna idiin mahadnaqaynaa waxay beeshan u qaadatay oo la og yahay shirkii ugu dambeeyay ee lagu gabagabeeyay ceelaf weyn ee dawladdu iyo madax dhaqameedku iyo culimaa u diinta Somaliland
ay qaadatay inaanaan nabadii jabinay beesha Axmed Faarax ay halkeedii u hayso gacan dhaafna aanay samayn waanuna sii xijin doonaa insha Allah idinkuna noogu duceeyo in Ilaahay nagu ilhaameeyo nabadda waxaan ku soo gaabinayaa dhamaantiin waa mahadsantiin mar labaad madax dhaqameedka ergada noo timi habar jeclo bari idinka sheegaya hareerahayga waxa taagan madax dhaqameedkii reerka oo aan kala maqnayn xagga dambe waxa naga fadhiyo culimadii midnima naga muuqata gacmaha isqabsada taaga soo midnimo maaha soo marxaati kama aha reer Soomaaliland wixii la jooga alxamdulillah sidaasaan ku soo gaabinayaa wabillahi tawfiiq alxamdulillahi rabbil aalamiin